mudane gudoomiye mudanayaal sharcigan waxa loogu yeerayaa sharciga siyaasadda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2018 ujeedada sharcigan laga leeyahay waxa lagu maamulayaa dhammaan arrimaha la xiriira siyaasadda maareynta maaliyadda ee guud ee dalka wuxuuna hagayaa mabaadi'da aasaasiga ah iyo habraacyada diyaarinta miisaaniyadda ansixinta miisaaniyadda iyo fulinta miisaaniyadda qaranka kormeerida la xisaabtanka warbixinta xisaabaadka iyo dabagalka dakhliga iyo kharashka raasumaalka deynta iyo sidoo kale deynta guud iyo damaanadaha xukuumadda gasho mudane gudoomiye mudanayaal sharcigan waqtiga uu gudiga gacanta ku hayay wuxuu soo maray marxalado kala duwan sida dhageysi dadweyne iyo sharci yaqaano oo lala tashtay amba sharci yaqaano maartay nala soo diyaariyay sharcigani oo ku hel dheer arrimaha maaliyadda markuu dulmarku sameeyay gudiga sharcigani wuxuu ku sameeyay isbedel iyo toosin qodobada qaarkoodii si waafaqsan xeer hoosaadka iyo dastuurka mudane gudoomiye mudanayaal hindi sharciyeedkan wax ka bedelka iyo toosinta gudiga uu ku sameeyay golaha sharafta leh inuu aragtidiisa ka dhiibto mudane gudoomiye mudanayaal sharcigan inta gacanta aan ku haynay waxyaabaha aan la kulanay waxa ka mid ahaa sharciyada sharcigaasi luqadiisi ma ahayn luqad maartay fadhisa ay ahayd googlaha aad moodo in maartay laga tarasgareeyay marka mudane gudoomiye waxaan dhihi lahaa sharciyada oo golaha loo soo gudbiyo ka hor in maartay sharci yaqaano oo golaha uu leeyahay lagu wareejiyo si ay u fiiriyaan luqadda sharciga luqadiisi sharciga inay waafaqsan tahay sharci si golaha ay ugu fududaato akhrinta iyo diyaarintiisa sababtoo ah annaga waqti badan baa naga galay in aan diyaarino amba u raadino dad sharci yaqaano ah runtii arrimo badan oo maartay oo aan la isku keeni karin ereyada qaarkood hataa aan la fahmi karin aan ku aragnay